madaxa xafiiska talaalka ee gobolka maroodi jeex ayaa fariin ku waajahan ololaha talaalka cudurka jadeecada u diray howlwadeennada talaalka ee gobolkaasi. mas-uuliyiintan oo xaflad ay ku anbabixinayeen kooxaha fulinaya talaalka ku qabtay xarunta keedka dawooyinka ayaa waxa ay ku faahfaahiyeen deegaanada loogu talagalay gobolka maroodi jeex ubadka ku dhaqan in si hufan loo gaarsiiyo talaalkaasi. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxa daryeelka caafimaadka ee gobolka maroodi jeex Dr. Cabdiraxmaan waxaana hadaladiisii kamid ahaa aynu maanta halkan diyaar ugu nahay oo bishu tahay 9kii bishii 3aad 2018 inaan daah furno bilowga talaalkii jadeecada oo ka dhacaya dhammaan degmooyinka iyo caasimada dhammaan Soomaaliland gaar ahaan anagoo aanu mas'uul ka nahay gobolka maroodi jeex waxa markaa imika aan diyaar garaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo tiimamkii kooxihii u baxayay miyiga Hargeysa waxaanu diyaar garaynaynaa kooxihii u baxayay imika miyiga Hargeysa tiimamka magaalada caasimada Hargeysa geli doonaan iyaguna ay aroorta bixi doonaan maadaama aan iyagu magaalada gudaheega ay gelayaan tiimamka markaa imika baxaya waxay u baxayaan degmooyinka gobolka maroodi jeex Hargeysa hoos yimaada ee miyiga taasi oo loogu talagalay in caasimada gudaheega iyo degmooyinka dibadda Hargeysa bari subaxda marka wada bilaabmo in listaweeya diinta ayaa ka mid tahay dad iyagu sabra way jiraan laakiin imika ciyaal baa laga hadlayaa ciyaalkuna waa waxa uu ku tabcayo waalidku ee habeenaya maalin baa uu ordayo oo doonayo inuu ku nasto aakharana inuu soo duceeyo marka hadduu ka horeeyo saadirteeda ayaa ay tahay inaan awlaadeena aan daryeelo oo aan ka daryeelo waxyaabahaasi laynagala dadaalayo. waxa kale oo munaasabadaasi ka hadashay madaxa wacyigelinta talaalka ee gobolka maroodi jeex iyadoo oo sheegtay waalidiintu inay uga faa'iideeyaan ubadkooda talaalkaasi. ugu dambeynna madaxa talaalka ee gobolka maroodi jeex Dr. Axmed Jaamac oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu fariin u diray bulshada iyo shaqaalaha talaalka fulinaya. waxaan maanta halkan waxa ka bilaabmi doona dhammaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka maroodi jeex kaasoo u kala qaybsan laba wejiga koowaad oo degmada Hargeysa ah ayaa waxa laga qaban doonaa talaalkii jadeecada wejiga labaadna waxa loo gudbi doonaa Gabiley iyo Baligubadle marka waxa ka qayb qaadan doona kooxo talaal oo dhan 380 team gaar ahaan gobol degmada Hargeysa oo caasimadii Soomaaliland waxa ka qayb qaadan doona 295 team oo iyo magaalaba mari doona wuxuu socon doonaa 5 maalmood oo isku xigta waxa la talaali doonaa caruurta 9 bilood ilaa 9 sano da'doodu tahay muddada uu socon doono bilaabmi doona waa berrito oo ay bishu 10 tahay ayuu dhammaan ka bilaabmi doonaa degmada Hargeysa inta ay leegtahay iyo magaalaba marka waxaan waalidiinta ka codsanaynaa iyo dhammaan waxgaradkaba inay taageeraan kooxaha talaalka ee hawshan ku wajahan haddii alla ka dhigo. maalinta beriya ayaa guud ahaan dalka Soomaaliland waxa si rasmi ah uga bilaabmaya ololaha talaalka cudurka jadeecada kaasi oo socon doona inta u dhaxaysa 10 ilaa 22 bishan aynu ku jiro iyada oo da'da carruurta la talaalayana ay u dhaxayso 9 bilood ilaa 9 sanadood.